inta Puntland ayaa waxay war ka soo saareen farolo oo fara badan u dira taleex iyo doorashooyinka dhacaya deegaanada Puntland haddii farolo uu soo laabtana qorshahooda ay caaw ka hadleen waxaan wareysanay Maxamed Cilmi Cabdalla afhayeenka golahaasi dad ayahooda ka tashanaya oo khaatimo la yiraahdo oo banaanka Puntland uga baxay oo tashaday inay tahay weerar lagu qaaday oo ahgaf taasna aan la wadaagin farole waxaanu aaminsanahay wixii halka ka yimaada oo dhibaato inuu asagu mas'uuliyadeeda qaadanayo waxa tahay afhayeenkii golaha samata bixinta Puntland madaxda kale ee golaha ma kuwa qabaan si fiican waxaanu aaminsanahay kulliga haddaan nahay golaha samata bixinta iyo ummadda reer Puntland in dad meel degan oo ku shiraya oo ayahooda ka tashanaya in weerar lagu qaado inaanay meelnaba kaga jirin sharciga ummadda ayaheeda ka tashanayso oo meel gaar ah joogta magaalooyin gaar ah oo aan Puntland hadda xukumin oo gacanteeda ku jirin jooga in duulaan lagu qaado taasi wax wanaagsan maaha wixii ka yimaadana oo halkaas cawaaqib xumaana waxa qaadanaya farole iyo wixii markaa isaga la shaqeynaya Cabdiraxmaan Farole in dhowr sano ayuu maamulka Puntland hoggaan u yahay maxaa hadda keenay waqtigiisii oo idlaaday in ciidan uu dul dhigo taleex hadafku uu ka leeyahayna maxay tahay muhiimadda ugu weyn oo uu ka leeyahay waxay tahay haddii ay taleex lagu shiray oo shirki taleex oo muddo loo fadhiyay oo beelaha dhulbaxanta ay ku tashadeen ay ka soo baxday khaatimo oo ay yiraahdeen anagu Puntland banaankaan uga baxnay khaatimaana la yiraahdaa meel walbana laga arkay ama jaraa'id ha ahaato ama telefishin ha ahaato ama magaranaysaa beesha caalamka ha ahaato amagaas ay tashadeen oo maamul gaara iyo madaxweyne ku-xigeenno iyo wasiiro ay samaysteen hadda wuxuu rabaa in uu helo muhiimadiisa oo dhammi 17 xildhibaan oo si qalad ah sababtoo ah beeshu hadday tashatay dimadooduna ay tashadeen oo 12 isin iyo aqoon-yahankoodii iyo indhalgaradkoodii iyo caaqaladoodii ay tashadeen siday u tashadeen bay annaga noo ahayd isagu marka wuxuu rabaa inuu shir kale oo qalad ah uu qabto oo uu yiraahdo beeshu waxay ku soo noqotay Puntland taasina wax macquul maaha waxaan ummaddu u dhamayn shalay maamul bay samaysteen gaar u ah oo khaatimo la dhaho waa tixgelinaynaa inuu maamul Puntland ka dhinac dhisan yahay marka haddii ay Puntland ku soo noqonayaan reer khaatimo iyaga u taalaa laakiin annaga inaanu weerar ku qaadno oo abaabulo oo aanu raadino xildhibaano magaranaysaayay codka subax intuu farole uu rabaa waa intaa maslaxad ummadda reer Puntland ma wado maslaxad dhulbaxantana ma wado mid Soomaaliyeedna ma wado laakiin ninka tagay in taleex waxa uu leeyahay deegaan ahaan waan ka soo jeedaa fikradaas ayuu aaminsan yahay hadduu fikradda aaminsan yahay markii khaatimo la dhisayay garow uu joogay markii madaxweynayaasha dooranayeen garow uu joogay markii ay aayahooda dhulbaxanta ka tashanayeen garow uu joogay waqtiga iyada ah wuxuu iman waayay oo uu dhulka uu sheegayo uu leeyahay waa ka soo jeedaa markaasaa la rabay inuu talada dhulbaxanta tashanaya ku soo saayiday oo yiraahdo wixii uu fikrad hayo markaa uu keeno laakiin maanta waxaan u aragnaa in magaranaysaa farole xildhibaano u raadinaya raalli ka noqon mayno in 17 xildhibaan oo beenbeena magaranaysaa cabsimed uu halka ka qorto raallina kama nihin magaranaysaa waxa uu wado waxaanu rabnaa haddii xildhibaanada dhulbaxanta 17 bay lahaayeen beelahaasi waana tashadeen oo khaatimo la baxeen marka wax loogu warwareego anigu garan maayo isimadoodii hadda muddo laga joogo 3 bilood bayaan bay soo saareen waanu haynaa ay leeyihiin anagu Puntland xildhibaano u saxiixinayno anagu haddaan nahay golaha samata bixinta waxaanu aragnaa dadka haddii aanay rabin dad walaalaha weeye inaan khidmad iyo shaqo laga shaqeyn ee qolo walba maamulka ay ku faraxsan tahay loo daayo iminka saxaafadii xataa waa lama ogola oo waa la caburiyey musharaxiintii iyo dadkii mucaaradka ahaa waa loo handaday dhibaatooyin badan baa ka jira maadaama Farole uu leeyahay inaga ayaa maamulayna in musharaxiinta oo ciidan u sameynayna sidaas ayuu ku doodaya taa ma keeni kartaa qalqal dhanka ammaanka ay isku dhac musharaxiinta iyo Farole dhaxmara nin musharaxa oo 5 sanadood dalka xukumayay oo 5 sanadood burbur iyo halaag dad u horseeday talaguma aamini karo inuu yiraahdo anaa maamulaya taas waa qodob anaguna yeelimayno inuu maamulo hase ahaatee in la tixgeliyo oo la xaq dhowro oo doorashadu xilligu asagu doorashada galayay cid ilaalinaysa ma jiray isaga ilaalinayay dalkuna sidii uu waaga ku qabsaday maanta ka liitaa waaga waxaaba jiray hay'adaha amniga shaqeynayay maanta waxma shaqeynayaan wadankii uu burburay sida darteed haddii la istixgelin waayo oo Puntland bay imika 3 gobol baa ku soo haray mudug iyo nugaal iyo bari
haddii la istixgelin waayo dee waxay noqonaysaa markaa nin walba awrkaagu ha ku qaado laakiin waxaan rajaynaynaa in la istixgeliyo saddexda gobol soo haray marka laga yimaado aas-aaskii Puntland imise gobol ayay ahaayeen oo hadda maqan waxaa maqan Sool waxaa maqan Sanaag waxaa maqan Cayn waxaa maqan Highland runtii intaasoo dhan way maqan yihiin intooda badanna waxa ka talisa Khaatimo waxaad leedahay marka in faroola in markii la dooranayay dhulkii uu hayay xilligan ma hayo talana ma hayo sidaa darteed waliba waxaan codsanaynaa inuu Cabdiraxmaan garto dhibta iyo mashaakilka uu dalka ka sameeyay taas oo 5 sanadood aanu kiisas waaweyn oo aan magaranaysaay waanayn oo xarig leh oo burbur leh oo salaadiin leh xiray leh oo magaranaysaay dad Soomaaliyeed oo dhulka deegaamada laga raafay leh oo diyaarado dad lagu laayay leh oo waxyaabo aad iyo aad u tiro badan oo qofka bini'aadamka ay soo koobi karin ayuu galay sidaa darteed waxaan codsanaynaa haddaan waxbaba loo raacin ee shacabku iskaba musaabixeen inuu tanaasul sameeyo haddaad tihiin golaha samatar bixinta Puntland yaa idin tartamaya idinku annagu macnaheedu xilka waxaa nooga weyn xalka dalka waxaa noo tartamaya dhammaan musharaxiinta oo dhan hadday 10 yihiin iyo hadday 20 yihiin muhiimadda iyadu waxa weeyaan janji baan rabnaa waxaan rabnaa dawlad runtii Puntland maamulka ka soo baxa inuu noqdo mid federaalka waagaag tusaale in haddii Faroole uu soo laabto maxay idin qorshaysan waxaan ku sheegayaa Faroole 66 cod hadduu helo 66daas hadda 17 marka laga jiro waa 49 cod hadduu helo oo uu Puntland ku soo laabto waxaa noo go'an inaanu Faroole Puntland madaxweyne ka noqon taasi meel bay noo taallaa waxayna noqonaysaa nin walba awrkaagu ha ku qaado iyo nin walba gobolkaagu ha ku qaado haddii la doorto maxaad u diidaysaa doorashadu waxay ku xiran tahay rabitaanka shacabka kuma xira lacagta ummadda oo la boobo oo xildhibaankii lacag la siiyo kuma xira taana yeeli mayno corruption ma yeelayno musuqmaasuq ma yeelayno 5 sanadood oo Puntland ay godka gashay in 5 sano oo kale oo mugdi ah ay Puntland soo marto waxaa laga marka haddii la doorto ay dhacdo in codadkaas uu helay musuqmaasuq iyo laaluush ayuu ku helay sidaasay noqonaysaa mana yeelayno Puntland January haddii la gaaro in uu haddeeraan waxaanu ku haysanay sanadka uu ku darsaday boob ah January haddii la gaaro qorshaha nooguma jirto Cabdiraxmaan inuu madaxweyne Puntland ka noqdo haddii Allah awooda lahaa idmo waanu nahaynaa fikradeedii iyo caqligeedii iyo qaabkii magaranaysaay aan ugu diyaar garoobi lahayn laakiin waxaan rajaynaynaa in caqligu shaqeeyo garashadu shaqeyso waxaa idinku eedayaa inaad hubaysan tihiin oo musharaxiinta qaar aad hubaynaysaan xitaa sida xogta lagu helay tusaale ahaan gaas oo kale gawaari technique inaad siiseen warar saasaana soo gaaraya dhawaanna in ciidanka in Faroole uu rasaaseeyay in gaari dhanka gaas ka socday wararkaasi maxaad ugu jawaabaysaan dole aligaas baabuur ma hubaysaneen baabuurta laga qabtay hal gaari baa laga qabtay dadna waa lagu dhaawacay waxayna ahaayeen baabuur uu rabay inay magaranaysaay ammaankiisa sugaan ciidana markaa ma saarayn baabuur uu markaa gatay oo uu magaalada Boosaaso ka gatay oo u socday gaalkacyo ahaa 3 baabuur bay ahaayeen mid baa la qabsaday dadna bilaahi sidaa darteed Cabdiraxmaan yani waxa uu qorshaysan nimanka musharaxiinta inuu midba meel ku caaysado kuwa wuxuu ku sheegay waa wadaado salaada tukadaan oo wuxuu lahaa xilal bay soo qabteen oo ku fashilmeen nin walba wuxuu rabaa inuu eed iyo waxaan jirin dusha ka saaro laakiin anagu samata bixinta hadaan waxa naga go'an January haddii la gaaro Cabdiraxmaan dalka inuu si madaxweyne ka noqdo dagaal ayaa ka soo cusboonaaday duleedka gaalkacyo deegaan godad la yiraahdo maxaad ka leedihiin dagaalkaasi waxaanu aaminsanahay dagaalkaasi wuxuu la mid yahay dagaalka taleex Khaatimo ma wada Cabdiraxmaan Faroole wada kaasna waxaanu aaminsanahay inuu Cabdiraxmaan Faroole wado inuu rabo dalka inuu dagaal geliyo oo magaranaysa dadka uu mashquuliyo oo yiraahdo colaad baa furan waana ka xunnahay dagaalka halka ka socda shacabka reer Puntland raalli kama aha maantay in dagaal ehli dadka dhex baro laakiin Cabdiraxmaan kulli wax walba uu tijaabinaya oo cimrigiisa ku korsado waxaad sheegtay in haddii Faroole uu soo laabto in dagaal aad ka xigtaan suurtagalna aysan noqonaynin Cabdiraxmaan ciidamo badan oo saarasin la yiraahdo ayuu Puntland ku howlgelinaya oo calooshood u shaqaystayaal ah ciidan badanna way qorteen awood aad u lahaan kartaan talada inaad ka tuurtaan intee bay leegtaan annagu aadaanu nahay samata bixinta dagaalamayno dadkana hubayn mayno mana jeclin dagaal inuu dhaco
laakiin dadku boorar bay la soo baxayaan waana diyaarsan yihiin ama saarison ha la keeno ama taangiyaal ha la keeno ama diyaaradaha la keeno shacabku waxaanay rabin laguma khasbi karo sidaas barnaamijkaygu waxa weeyaan barnaamij saliimi ah oo aan ahayn dagaalna runtii haddaan Cabdiraxmaan isagu bilaabin annagu xaqiiqo inaan xabad bilowno dagaal bilowno dooni mayno laakiin waxa naga go'an Cabdiraxmaan inaanu dalka ku soo noqon caqabad wuxuu ku yahay shacabka Puntland iyo horumarkeeda wuxuu caqabad ku yahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto saad la socotid boosaaso dad buu ka soo raafay Soomaaliyeed oo uu dalka ay ku soo daadiyay saad la socotid mucaawanooyinkii iyo hay'adihii iyo wixii oo dhan gobolka bari waa ka soo raray siiba magaalada boosaaso ay haawanaysaa annagu ma arkin magaalo loo furfuro Cabdiraxmaan wuxuu ka shaqeeyay inuu magaalo u furfuro taasna dee kulli soo dhamaatay muddaan u saburayna laakiin saburkii naga dhamaa ilaahay idinkiisna waxaan rajaynaynaa shacab inay helaan dawlad fiican iyo nidaam fiican